50 2. صدام حسين المجيد. التي قد تكون سياسية. ضيحاس ayaan ku fiirinaynaa teleskoobka. المعرض الرمضاني تقريبا يعني الكتب كلها يعني dadku way jecel yihiin cunnada gacanta lagu sameeyo. راديو صناعة حديثة من يفتح الباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. habeen wanaagsan. waxaa jira kitaab magaciisu yahay kitaab al-aghani fi layali asfahan. ka warrama haddii aan si toos ah u wada samayno annagoo halkan joogno. kitaab magaciisu yahay kitaab الدوحة في ليالي الدوحة. habeenka xilliga ramadaanka dadku maxay sameeyaan halkan yani طبعا mujtamacaadka ama bulshooyinka bariga caalamka haddii ay noqdaan carab iyo haddii ay noqdaan ummado kaleba waxaa lagu yaqaanaa inta badan in habeenkii la iska soo jeedo yani hadda tusaale ahaan ramadaan aan ku jirnaa ilaa iyo inta suxuurta yani 4 iyo 3 daqiiqo meelahaas suxuuranaa ilaa intaan ka suxuuranayna dad baa taagan dad halkan ugu imaanaysa يعني gaar ahaan hadda meeshan aan joogo oo yani bartanka magaalada suuq waaqif dad mazaad calani wax kala gadanayo teleskoob bandhig buug dad fardayaal saaran caruur yani magaalada waxaad moodaa dabcan magaalada dhan in halkan iskugu imaaday meel kale ayaan aadaynaa waxa qasab ah inaan dhaqaaqno teeda kale waxa qasab inaan tago meel macrad ama buugaag yani weliga ma aragtay bandhig buugaag oo loogu talagalay ramadaanka kaliya bandhig buugaag aanan dawli ahayn international ahayn maxalli ah yani magaalada gudaheeda bas dabaqyada waa inaan idin tusaa bandhigaas yani hadda aad igama fogo waxaa qasab inaan soo aragno waa qasab waan aadaynaa teleskoobkan wuxuu dhex yaallaa meeshaan yani waxaad ku arki kartaa dhammaan meerayaasha kala duwan mariikhan aad maqlayso muxaraxirka maxay ahayd almushtari dhammaantood siday u egyihiin waad arki kartaa ayaad arki kartaa laakiin hadda caawa nasiibkanaga waxaa jooga bas dayax yani waxaa la arki karaa dayaxa kaliya dayaxa hadda yarkan wuxuu yidhi waan kuu fiirin mobilkan kugu fiirin yarkaas meesha fadhiya ay yidhi dhib ma lahan mobilkan ku fiirinayna marka dayaxan mobilka ku arkaynaa sida uu noqonayo markii dayaxa saas shucaaca u marka lagu arko teleskoobkan sidoo xaalku noqon doonaa dayaxaas ayaan ku fiirinaynaa teleskoobka annagoo adeegsanayna kaamirada mobilka ممكن بالعرض كده لا بتسجل اصلا بتسجل يا شكرا dadka halkan ay imaadaan si ay u arkaan meerayaasha kala duwan mariikha la sheegayo waxaraxirka la sheegayo maxay ahayd kawaakibta kala duwan dhan in aragno laakiin insha Allah waxa isku daynaa mar kawaakibta waa sida dayax oo kale yani lama arki karo waxa loo jeedaa yani waqti bay leeyihiin nuguma aadan hada lama arki karo waxa qasaba inaan maalin imaano si aan u aragno dhamaantood mariikh waa arkaynaa sidoo kale insha Allah dhamaan meerayaasha mar aan ka sheekeynay 1 50 2 50 3 مطلوب 200 الراديو عربي الراديو الكبير عندي هدف 50 الا لزر الراديو شغال من يفتح الباب في الراديو شغال 200 300 350 400 meeshan waxaa lagu gadayaa alaabo qadiim ah yaa ma xasuusataan mobiladii Nokia يا صدام حسين المجيد صدام حسين لعق عراقي آلاب قديم لعق قديم سيوف سيفو إلى أولوين وحياة بدن ما لقدايا من يفتح الباب راديو صناعة حديثة من يفتح الباب من يفتح الباب في الراديو
من يفتح الباب؟ نزل جيب الجرافون هاي. nolosha bani aadamka markaad fiiriso dabcan noolaha xoolaha kala duwan ayaga asaas ah maanta haddii ay dadku fuulaan gawaari haddii la fuulo tareen diyaarad haddii la fuulo xoolahan ayaa asaas ah wax walbana waxay u noqonayaan asaaska dadku waxay jecel yihiin qaab dalxiisnimo yacni dareen qofka hadda canugaas oo kale maalan markii la saarayo hashaas markay saaran tahay waxay dareemaysaa dareen ah yacni bii'ada inay ka tirsan tahay qofku wuxuu dareemaya macnaha bii'ada inay ka tirsan tahay halkaana imaadaan dadku yacni geelaan ayay fuulaan hooyadeed ba halkaas taagan way ku faraxsan tahay gabadheeda macnaha inay hashaas u saaran tahay gaadiidka asalka ah habeenada dooxa waxaa ka mid ah طبعا جلاتدان تركيga ay sameeyaan ee dadka yaani una qaban karin ay dhibayaan laakiin hadda dad badan ma joogaan waxaan aadi doonaa meesha bandhiga buugaagta oo buugaag badan ay yaalaan طبعا arkana waxa yaalo laakiin waxa qasab inaan idin geeyo meel kale inaan aadno meel kale bal waxa yaalo sidoo kale aan soo fiirino soo raac dad ciyaar fiirsanaya meeshan ciyaarta ay kubadda cagta si waxa looga qadariyaa aan caadi ahayn waxaan kugu daliil ah FIFA World Cup Qatar 2022 in meel walba lagu dhajiyay طبعا dadka shishada cabaya anaga kuma jirno laakiin meesha shishada lagu cabaa meeshan ii sheegayo idin aan tagno huwa meeshan ay dadka fadhiyaan yani dad aad u badan baa fadhiya maqaayadahan runtii meeshan yani hal cilad bay leedahay aanan jeclayn oo inta badan yani inaad imaado iska soo socoto way marmar waa caadi laakiin cilad jirta ayaa ah dadka shishad ay aad u cabaan meeshan shishad yani haddaad fariisato waxa laga yaabaa in shishad lagugu buufiyo sida odayaashan hadda meesha u nasanayaan oo kale laakiin magaaladii dhan baa soo baxday yani waxaad moodaa magaalada inay soo baxday weliga ma aragtay bandhig buugaag oo loogu talagalay ramadaanka waana meesha hadda aan joogo fiirinayna waxa yaalla macrad ramadaan lilkitaab aan fiirina bal macradkan loogu talagalay bisha ramadaan wuxuu yahay macradkan ama bandhigan yani waxyaabaha tusaalaha markii la sameeyo kale aniga shakhsiyan aan ku jeclay waxaa la keenay macnaha qof saamayn leh qof yani ma sha Allah ama yani mawduuc muhiima ka hadlaayo yani waxaa hadda ninkan tusaale ahaan hadlaayo kale waxaa laga keenay Morocco Maghrib ustaad yani ka hadlay xadaaradda islaamka saamaynta ay xadaaradda islaamka ku yeelatay ay ku leedahay caalamka طبعا المعرض الرمضاني تقريبا يعني الكتب كلها يعني تتكلم عن الدين عن الإسلام وعن التاريخ بس الدولي بشكل عام يعني في دولي في ديني في ثقافي في فني في يعني الكتب تاريخي الإسلامية تقريبا إسلامية ثقافية دينية في شوي عن التاريخ عن الثقافة في دولة قطر ومن نواحي يعني في ندوات مثلا ندوة يعني الحين في ندوة نعم الناس تتكلم مثلا عن أشياء يعني لها علاقة بالمعرض هي في ناس قاعة هنا في قاعة صح؟ هي في يعني في ناس يجيبون مطاوع يعني يتكلمون يعطون سيرة يعطون أحاديث يعطون مواضيع دينية عن رمضان عن الصيام عن شلون الصيام وكيف أجواء رمضان runtii yani waxay soo jiitay arrin u fiirsasho leh ayaa ah in hadda bandhigan dhan kutubta lagu soo bandhigaya ay yihiin kutub islaamiya dadka ka hadlaya hadda kelmad la jeedin doona sidoo kale aadam calayhi salaam ulil azm shay
وحاجرة طبعا مرحلة أيام كنالك أوغانش أوغاه هذا إن ضد بدنهم مسلمين أمانتها أي فهمين عالم كمعناها الضوء أرد كتصال أهان حضارة قلبات كأي معناه سيدا إن بلا أنت إن لدالي هذا عالم كإسلام مركز فيرس وضم بدن دب أيا الله صلى الله عليه قدر هذا اتصال أهان واجه اللغة العربية طبعا هو اللغة الرسمية لكن وحول بعده حوق اللي صار يا لغة العربية حاضرات بدأ كتب إسلامية وكل الدول نوعي هذا بمجلدات أحاديث تفسير تاريخ علوم إسلامية طبعا ماشي أنا ضوء إيمان كتب هذا اتصالهن ماشان يالله صحيح البخاري روضة الطالبين اتصالهن البداية والنهاية لابن كثير ما شاء الله موسوعة الأخلاق حتى هو آخر سنكرتها أنت آخر سنكرتها هذه الكتب للمطالعة فقط يعني حتى إيب ماهن إيماو ماشان تتربتد أخرسو الفتح المبين الأذكار الجامع هيدا ما شاء الله هل كانت حتى حلادة كراس لو قلت لك لو فريسانيسو الكاس فريسو وآخر سنكرتها يا أهلا وسهلا حتى وحات تبيو تيفي هذا يعني رسمي حكومي حتى نكاس هل كانوا كموضة كاميرا ده طبعا كاميرا التلفزيون هذا وين حلقات عن الإسلام من تاريخ الإسلام كأحوال وماشا كساب سنة كاميرا ده أيان هذا التوس بانو هذلا يعني معناها هو أنا مرة كنادر أنا قاعد الصعدة أما التوس أنا هذلا ميكروفون هذا أنكو هذلا يا وايرلس جو ستوس عد كيس آدو في عيني هاي ماشي أنا تكون حين كدينو هذا سكلا صعد متطوعين تانا ماشي للي ردان السلام عليكم معرض كان ونصر نقن دونا وحقصب إن أن ماشان هذا sidoo kale waxbaan soo arkaynaa waana soo noqonaynaa farda ahlan wa sahlan farda iska socda dumar mala wax dubaayo canjeero ama nooc ka mid ah طبعا dadku way jecel yihiin adiga hadda muuqaalkan daawana waa jeclaan lahayd inaad caawa meeshan imaadad ila socon lahayd halkaana mala waxaad ka gadato waxaan dad xaqiiqi ma ahan waa bombale fardahan yar ciyaalka inay fulaan way jecel yihiin sababta fardahan u yareen maxay tahay yaa tura brother why is this short why this horse is short قصير يعني ليش قصير هو كذا يعني فصيلة هذا بوني البوني نفس نوعيته نفس هو كذا يعني ايوه نفس من اول ما ولد هذا يسمونه بوني اسمه بوني ما قاعد يسوى بوني يعني سيدا انه اله وابور اي والله يعني قصير كذا كان ندوه كلا كان لو قوانايا wax ku saabsan tahay saxiix Ibrahim ulul azm shay kada ayaan fiirinayna ندوات كانوا اسك جعلنا اسك دغيست دكتور كصد هدلايو وحكيمه ليبيا ما شاء الله مغعيسه waa دكتور علي الصلابي بدن ايو الجزيره كسو بخاي طبعا حلقات برنامج بدن بو سمين جيره يعني اي لا yeelan jireen wuxuu ka hadlayaa ulul azm min ar-rusul dad badan ayaa joogo waxa fadhiyo wasiirka thaqaafada dhaqanka waa mid kamid ندوينك الرأسان معرضك كان استاذ كان قيمة مروكو أيضا سعيد بما أراه من إقبال على الكتاب في هذا المعرض الرمضاني رجعنا حودي كشران هذا تلفزيون كاميرا مان كاسة تبيناي
موضوع ولا هذا تلفزيون الريان waxaan ka soo dhamaaday nadwadii oo ma sha Allah yani aad iyo aad u faa'iido badneed ma sha Allah ulul azmiga anbiyada ayuu xooga hadlay yani mid si fiican xataa dadka markaad fiiriso dhageysanayay waxay u dhageysanayaan si fiican meeshan dadku waxbay gadanayaan sidoo kale canjeera la dubaya dadku way jecel yihiin cunnada gacanta lagu sameeyo dibaysaa dalada waxaa la gaaray xilligii aan sii bixi lahaa aan aadi lahaa xaafadayda wax badan baan meesha joogay عيري لكن دتكدن ماشان سوقان تقليدية يوتيوب حيتري هذا يصور يا حلاله سوقا وانا قديم معناه قابكو سميسين هي sidoo kale waxaad ka gadan kartaa dhar caadi ah waxyaabaha hadda fiirista jaayadaha lagu tukado walaashay Allah ii daayaya halkan degdo wax deganaan jirtay way guureen hadda laakiin way ka tageen ciyaalkeeda mar walba soo halkan waxa ugu gudi jiray dharka carruurta ay xirtaan maaragtay qamiisyada ciyaalka iskoolka ku aadaan ama dharka carruurta ma yani dharka iskoolada inta badan ciyaalka waxay xirtaan dharka ciyaalka iyo dhar qadariyaadka xirtaan halkan ayaa كذا جرى waxaad moodaa magaalada yawm al-xashr yani dalka waxaa ku nool 2 milyan iyo bar meelahaas laakiin halkaana imaadaan dhammaantood halkaana imaadaan markay xilligaan kale la gaaro halkaanay joogaan suuqa yaa ahlan bikum waxaan soo gaarnay gabagabadii mawduucan socodkan jawladan aan suuqan soo wareegnay aan ku aragnay sida tahay nolosha